بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal saddex su-aal ayaan ka jawaabayaa su-aalo la isoo weydiiyey micnooyinkoodana waa muhiim in laga hadlo. mowduuca ugu horeeya waxaa weeye webiga micnooyin badan ayuu leeyahay. sidoo kale haddaad ku aragtid shabeel iyo maroodi, su-aal noocaas oo kalena waa laysoo weydiiyey, laakiin qofkii soo weydiiyey ma soo raacinin xaaladiisa, marka waxaanu kusoo jawaabi doonaa guud ahaan micnooyinkooda. ugu horeyn haddaan ka hadlo maroodiga sidiisa wuxuu tilmaamaya guuleysi, wuxuu kaloo tilmaamaya awood. qofka kuriyooda asigoo maroodi dul saaran, taa waxay tilmaamaysaa inuu helayo mansab wanaagsan. wuxuu kaloo tilmaamaya derajo iyo sareen. haddaan u galo su-aasha shabeelka haddii aan ka horeeyo adoo dusha ka saaran, waa sida tan maroodigoo kale, waxay tilmaamaysaa sareen iyo qiimo. haddii aad tahay qof shaqeeyana mansab wanaagsan, ee shaqadaada ha ahaato, waxbarashadaada ha ahaato, meel walba meel sare ayay tilmaamaysaa. shabeelkuu ku ceersanayo sida su-aashan aan soo weydiiyo kale, mise uu ku dhibaateynayo, mise uu rabo inuu ku dhibaateeyo, waa cadow rabo inuu dhibaato kuu geysto. laakiin waxayba aragtay gabadhan shabeelkii ceersanaya kabacdi maroodi dusha ka fooshay, yacni maroodigana hore waxaa nagu soo tilmaanay guuleysi. insha allah riidaada haddee iswaafaqda intaasay tilmaamaysaa. wallahu yaclam. haddii aan faahfaahiyo shabeelka, aan u gudagalo micnihiisii waxay tilmaamayso. haddaad ku riyootid shabeel oo ku dhibaateeyey, taa waxay tilmaamaysaa inay cadaabo kaa guuleysan karaan, mise dhibaatooyin kale. haddayna cadaabo jirin, dhibaatooyin kale oo yacni arrimo kale oo ku dhibaateyn karo. haddaad ku riyootid adigoo ka cararay shabeelka, ka guuleysi dhibaatooyinkaasay tilmaamaysaa, mise cadaabadaadii. haddaanu soo noqdo gabadhaa weli la guursanin, mufasiriin qaaraa waxay leeyihiin hadday ku riyooto gabadhaa weli la guursanin shabeel ceersanay, waxay tilmaamaysaa rag badan oo ida rabo, yacni oo ka rabo arrin guur, xiriir, inay arrimo noocaas oo kale. waxay kaloo tilmaamaysaa hadday ku riyooto gabadhaa weli la guursanin aragtida shabeel keliya, yacni ma ceersanayo, waayo aragti oo keliya. taan waxay tilmaamaysaa inuu ninkaa yahay nin awood leh, nin oo quwad leh, shaqsiyad leh, inuu ida markaa nolosheeda ku jiro, mise nolosheeda kusoo biiri doono. wallahu yaclam. aragtida xawayaanaadka sidoodaba iyagoo ku dhibaateynayo mise ku weerarayo in badan ma wanaagsano, laakiin haddan mufasiriinta fasirka riyooyinka mid walba micno gooniyu haystaa. marka aniga waxaan isku dayahay inuu mid walba reyga uu ka haysta iyo kitaabyada ay ka qoran inaan wax kasoo qaato, aan iskugu keeno videogan. marka sidaa darteed insha allah waxaan rajeynaya inaad fahmi doontaan, aadan ku jahwareerin. gabadha la qabo hadday ku riyooto shabeel, aragtida shabeelka waxay tilmaamaysaa isku xirnaasho qoyskeeda. hadday ku riyooto asigoo kula nool yahay guriga shabeelka, taan waxay tilmaamaysaa inuu nin wanaagsan, saalixa, oo yacni ninkeeda uu yahay ilaah calaf ugu daray. qaarna waxay leeyihiin aragtida shabeelka laba micno ay tilmaamaysaa. nin iga sareeya, yacni matalan mudiirka shaqadaada oo kale, ninka oo shaqada mas-uulka ah oo adiga kaa sareeyo kale, mise qof matalan kasoo qaad waxbarashadaada, goobta waxbarashada meeshay doontaba ahaad, qof kaa sareeyo, mise waxay tilmaamaysaa leeyihiin cadow xoog badan. waxay leeyihiin mufasiriinta qaar dilka shabeelka aad ay u fiican tahay, adoo dusha ka saaranna aad ay u wanaagsan tahay, ilaan waa ka guuleysi cadaabadaada. walaalayaal, arrinta shabeelka halkaasaan kusoo koobayaa. waxaan u gudagali doonaa aragtida webiga iyo micnaheeda. haddii aad u baahatiin riyooyin ku saabsan xawayaanaadka, muuqaalo u qaasa waan kasoo sameyn doonaa, laakiin muuqaalka si uu xiise u yeesho oon caajis u noqonin, sidaa darteeda 3 mawduuc soo qaatay. mawduuc haddaan u gudagalayo waa webiga. haddaa riyo ku aragtid, haddaan u gudagalo webiga guud ahaan, waxay leeyihiin culamo qaar waxay tilmaamaysaa xaj mise maal. waxay kaloo tilmaamaysaa derajo sare, yacni matalan inaad adiga meel aad mudiir aad ku noqotid, meel adiga lagu magacaabo kala, meeshaasna meel sare ay tahay.
waxay kaloo tilmaamaysaa ay leeyihiin nimcooyin badan. Waxay kaloo tilmaamaysaa tijaaro qofka ganacsatada ah. Waxay kaloo tilmaamaysaa ay leeyihiin ixtiraam iyo cilmi aqoon. Marka sida hore idinku sheegay mufasir walba ra'yi gooni ayuu ka leeyahay. Meelo qaar ayay ka kala duwan yihiin mufasiriinta riyooyinka, meelo qaarna way isku egyihiin. Sidaa darteeda insha Allah sida hore idinku ballan qaaday waxaan isku dayi doonaa inta ahmiyadda leh inaan iskugu keeno muuqaalkan. Haddaan u imaano haddaad ku riyootid biyaha webiga oo socdo oo quruxsan haddaa aragtid nadiif ah, taa waxay tilmaami kartaa sadaqooyin jaari ah, acmaal kaloo wanaagsan oo jaari ah, yani acmaalka jaari ah oo soconayo. Subxaan Allah, hataa qofka markuu dhinto waxaa jira sadaqooyin hataa markuu dhinto qofku soconayaan. Cakiskeeda haddaa ku riyootid biyaha webiga oo wasaq ah oo socdo mise uraayo, taana laga yaabaa acmaal aad samaysay jaari ah laakiin sayi'aad ah aan wanaagsaneyn. Yani matalan ka soo qaad waxaad samaynaysaa wax xun sida fisqi, balaayo, dhibaatooyin aad faafinaysaa, kuwiina dad badan aa kaasii qaadanaya. Marka hataa haddaad dhimatid arrimahaas waxay ku noqonaysaa sayi'aad oo jaari ah oo cayaadu billah tabcan. Qarqoonka webiga ma wanaagsano adoo ku qarqoomayo, adoo bahalo kugu dhex cunaayo, adoo ku dhex dhibtoonaysid, biyihii oo ku qaadayo, biyihii oo daad oo kale kaa daba imaanayo aad ka ordaysid oo kale. Haddaa mar aad ka baxsanaysid aad ku riyoonaysid adigoo biyihi ka baxsanaya mise waad ku qarqoontay kabacdi waad ka soo baxday, waad ku waxyeelootay biyaha dhexdooda, yani dhibaataa kaa soo gaartay laakiin ugu dambeyn waad ka baxday. taana rubama dhibaatooyin hadhowna adi faraj kaaga soo baxay. Cabitaanka biyaha webiga mufasiriin qaar waxay leeyihiin waxay tilmaamaysaa inuu dhibaatooyin badan qofka la kulmayo oo yani oo dhibaatooyin haysta laakiin raadinayo xal u raadinayo. Ra'yi kalena wuxuu leeyahay cabitaanka biyaha webiga waxay tilmaamaysaa kheyr badan rabbi ku arsaaqaya qofka. Riyada fasirkeeda qaybta sharta mar walba ha qaadanina, dhinaca kheyrka niyeyso, insha Allah ilaahina waa idin rumeynaa walaalayaal. Haddaan soo noqdo su-aasha ku saabsan webiga oo nala soo weydiiyey, aragtida adigoo dhex maraayo webiyada mise webiga dhinacyadiisa mise dhexdiisa, taa waxay tilmaamaysaa inay mashaakil badan kuga hareeraysiin, dhibaatooyin badan ay jiraan aad xal u raadinaysid. insha Allah socodka webiga aan dhibaatana aad kala kulmaynin, rubama aad xalin doontaa mashaakiladaada dhibaatooyinkaaga. midaa ayaa rajaynaya, midaa ayayna tilmaamaysaa ileen mufasiriinta fasirka riyooyinka. walaalayaal laag noo saara noona sheergaraya, halkaasaan kusoo koobayaa. wixii su-aalaha qaybta komitiga igu soo qora. wassalaamu calaykum.